And now there was this debate going on. Should we keep it here? She's going to die. Where should we go? There is no ambulance. And now there was this debate going on. Waxaana socotay dood. Should we keep it here? Inta miyaan ku haynaa? She's going to die. Way dhiman doontaa. Where should we go? Halkeen aadnaa? There is no ambulance. Ma jiro wax ambulance ah. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Radius ulna of my right arm were fractured. Radius ulna waxaa lahaa labadaas lafood ee gacmaha ku jiraan. Labadaas lafood ee gacanteeda midigta way jabeen ay leedahay. Fracture waa jabid. Doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima. Maanta waxaan idin wadaa gabar Pakistaaniyada oo ka sheekeynaysa qasiyada ku dhacday. Korinta sheekada bilaabma kor fadlan hadii nagu cusubtahay nagu soo biir channelka subscribe ee video like garay una share garay asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Englishka. Let's go. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family. I was 18 years old when I got married. Waxaan jiray 18 sano markii aan guursaday. I belonged to a very conservative family. waxaan ka soo jeedaa leedahay qoys maxaafad ah. Belong markan waa ka tirsanaasho ama ka soo jeedid. qaab kale waa loo isticmaali karaa mar waxa loo isticmaali karaa markii aad ka hadlaysid lahaanshaha. Salaam waxaa dhigi kartaa this book belongs to me. Buugan aniga iska leh. The money belongs to him. lacagta asiga iska leh. mar kale waxaa loo isticmaali karaa markii aad wax ka tirsan ka sheekeynaysid membership. sidaad gabadhan u isticmaasho kale waxaa dhigi kartaa I belong to a very conservative family. yani waxaan ka soo jeedaa ama ka tirsanahay qoys aad maxaafad u ah. A Baloch family where good daughters never say no to their parents. A Baloch family. Baloch waa qoomiyad ka kooban qabiil isku tagtagay oo degaan Pakistan. Where good daughters never say no to their parents. halkaas gabdhaha wanaagsan marnaba aysan may ku dhihin waalidiintooda. My father wanted me to get married, and all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. My father wanted me to get married. Aabahay rabay inaan guursado. And all I said was, waxa kaliya aan dhahno wuxuu ahaa, if that makes you happy, hadii taas adiga ay farxad gelinayso, I'll say yes. waxaan dhihi doonaa haa. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. And of course, it was never a happy marriage. طبعاً mana ahayn guur farxad leh. Just about after 2 years of getting married, ku dhawaad 2 sano kadib guurkayga, ku dhawaada loo isticmaala. About 9 years ago, I made a car accident. Ku dhawaad 9 sano ka hor, I made a car accident. waxaan galay shil. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. Somehow my husband fell asleep. si ayuu ninkayga u hurday and the car fell into a ditch. gaarigan wuxuu ku dhacay god. ditch waxaa lahaa godadka laga qodo geesaha wadooyinka oo biyaha ay maraan. sida sawirka idinkaga muuqato kale. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. He managed to jump out. waxa uu suurta gashay inuu boodo. Jump out. boodid banaankana u boodaa la jump out. Saved himself. naftiisu badbaadiyay. I'm happy for him. asigan u faraxsanahay. But I stayed inside the car. laakiin ana waxaa joogay gaariga dhexdiisa. Stay joogid inside gudaha. Inside the car. gaariga gudihiisa. And I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine now. And I sustained a lot of injuries. waxaanay soo gaaray dhaawacyo fara badan. List is a bit long. listigu wuu yara dheer yahay. A bit waxaa lagu fasiraa yara. tusaalahan waxaa dhihi kartaa oo kale I'm a bit sad. waan yara murugeysanahay. I'm a bit hungry. waan yara gaajeysanahay. And so on. Don't get scared. I'm perfectly fine now. ha baqin hadda waan fiicanahay. Scare waa baqid. tusaalahan waxaa dhihi kartaa Are you scared of me? miga baqaysaa. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Radius ulna of my right arm were fractured. Radius ulna waxaa lahaa labadaas lafood ee gacmaha ku jiraan. labadaas lafood ee gacanteeda midigta way jabeen ay leedahay. Fracture waa jabid. The wrist was fractured. sidoo kale kalgoyska gacantana wuu jabnaa. Shoulder bone and collarbone were fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. lafta garabka iyo laftaas kaleetadba way jabnaayeen ay leedahay si sawirkan kaga muuqato. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury,
Lungs and liver were badly injured. My whole ribcage got fractured. Ribcage waxaa la dhahaa lafahan feeraha oo ilaa laf dhabarta tagayo. Waxay difaac u yihiin unugyada jilicsan sida wadnaha oo kaleeteed, beerka, labada sanbab, and so on. And because of the ribcage injury, lungs and liver were badly injured. Dhaawacii ribcage ka soo gaaray dartiisna, sanbabaha iyo beerka ayaa si xun u dhaawacmay. Badly, si xun. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. I couldn't breathe. Ma neefsan karin. I lost urine and bowel control. Waxaan waayay controlkii kaadida iyo bowel waxa dhinaa markaan saxaro, laakiin bowel waxaa la dhahaa tubada saxarada soo qaado. That's why I have to wear the bag wherever I go. That's why I have to wear the bag wherever I go. Waana taas sababta aan bacda u xirto meel walba waan aasanayo. Bacda ay ka sheekeynaysa waa tan. Waxaa lagu xiraa dadka saxarada aan ceshan karin meeshaas ay ka saxaroodaan. Akhaari videoga aad u dheer yahay meeshaas iskaga soo simeynaa. Fadlan ha hilmaamina videoga la garisid channel subscribe aad ahdid. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.